وعند داوديال ومركلي برنامجكeenii wareysiga toddobaadkood alaaba inooga barateen TV-ga Universal Studios magaalada Nairobi waxa barnaamijka martay inoogu Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid oo ah kamida akademiyaha Soomaalida waana aqoonyahan Soomaaliyeed oo si weyn u adarsa siyaasadda Soomaaliya waxaanu barnaamijkeena diiradda ku saari doonaa xaaladda guud ee dalka Soomaaliya maadaama isbedel uu jiro oo lagu jiro diyaar garowga doorashada 2016 ama dawladda cusub ee 4 sano soo socota waxaan jeclaan lahaa Bursaliid marka hore ku soo dhawow TV-ga Universal marka horta ma la gaaray xilliga doorashada diyaar garowgeedii bismillaah xamdi aad ma hadsantahay adiga iyo bahda TV-ga Universal iyo guud ahaan shacabweynaha Soomaalida su'aashu waa su'aal aad muhiim ah waxa la dhihi karaa waa la gaaray lama gaarin waa la gaaray oo qandhadii doorashooyinka hadda way socotaay oo murashaxiin badan haba taagan sida aad aragtid lamana gaarin oo ilaa dadkii electorate-ka ay wax dooranay ay soo baxaan oo gudoomiyaashoodii baarlamaanka iyo senadka ay kala doortaan qaabkii u shaqeynayaan ay kala cadeystaan doorashada sida loo wado inay ku qanacsan yihiin in kale ay meel mariyaan ilaa laga gaaro waxaad moodaan aan weli la gaarin xilligii doorashooyinka dhinaca kale xilli kordhin siyaasadaysan lagana yaabo inay dhowr xilli kordhin oo kale ku xigtana dhinaca kale ayadana ka socota marka waxaad moodaan inuu si un u jiro nooc un wareer ah marka aad fiiriso hadda inkastoo diyaar garow lagu jiro hadana dawladda wadanka ka dhisnayd sharciyada dawladda maxaa la dhihi karaa oo dad badan ku muransan yihiin dawladda hadda marka la yiraahdo si guud marka loo fiiriyo waxay noqonaysaa hay'adihii federaalka ahayo oo dhisnaa oo dhan guud ahaan dalka gaar ahaan Muqdisho waxaan ka hadlaynaa waa xafiiska madaxweynaha xafiiska ra'iisul wasaaraha iyo xafiiska gudoomiyaha baarlamaanka kal hore sibuu isu agaasimay oo xilligiisa intaanu dhicin buu ka shaqeeyay in ilaa baarlamaan asaga bedela laga helayo ay sii joogi doonaan dastuurka ku meel gaarka federaalka noo yaalna sidaas oo ilaa baarlamaan la soo doortay uu yimaado inaanay meesha ka baxaynin markaad isaga fiirisid marjac ahaan waa dastuurkii 1960 oo mar walba ilaa baarlamaan kan bedela la helaa bedelis male marka waxay moodaa in baarlamaanka uu sharciyad haysto uu ku shaqeeyo labada xafiis ee kala soo hartay xafiis waa xafiis la doortay waa kan madaxweynaha xafiisna waa xafiis la magacaabay oo ra'iisul wasaaraha xilligii la doono baarlamaanka shaqada ka qaadi kara laakiin hadda waxa ay sharciyadiisa dooda ka taagan tahay muranka waa xafiiska madaxweynaha kaasoo aad moodid ilaa asagana laftigiisa la helo madaxweyne bedela oo sharciyad ku bedel inaanu meesha ka tagi karin qaab ku meel gaarnimo u shaqeynaya laakiin weli lama dhihi karo madaxweyne ku meel gaar maxaa yeelay madaxweyne bedelay iyo qaab loogu heshiiyay inuu ku meel gaar noqon doono midna malahan xamdi dhibta ugu weyn waxay ka taagan tahay dastuurka federaalka ku meel gaarka oo haysano kaasoo aan kala cadeyneynin kaalimaha iyo xilliyada la galo ee shaqaaqadaha dhaca siyaasadeed ama mid dastuuri ama mid bulsho sidii wax la kala yeelaha midna marka waxa lagu qasban yahay in doorashada xilligii loogu talagalay aan la daawo marinin hadii la daawo marinayo hadana laga gorgortamo oo la agaasimo isla marka ay doorashada dhacdana markaas madaxweynaha uu xilkiisa sidaas ku way madaxweynaha cusub uu ku bedelo marka inta laga gaarayo xilligaas waxaad moodaa in madaxweynaha uu ahaan doono madaxweynihii dalka mararka qaar waxaad aragtaa dad adeegsanaya madaxweynihii ku meel gaarka waqtigiisu dhamaaday maxaa la dhihi karaa laftirkeeda waa ole doorasho dhinaca kale waxaad moodaa inay tahay bisayl la'aan dadka siyaasiyiinta ee Soomaalida ma jirto sunno iyo tusaale aan ka qaadan karno gobolka aan ku noolnahay geeska iyo bariga Afrika ama guud ahaan qaaradda Afrika ama xataa beesha caalamka dalalka kala duwan markaad fiirisid ama dastuur ha ama yana ahaanin ma jirto meel madaxweyne inta xilkii uu ka dhamaaday ama doorashadii ay dib uga dhacday lagu khasbayo in madaxweynaha uu noqdo madaxweyne ku meel gaar ama xilka ka tago gudoomiye sii qabto dastuurku wuxuu ogolyahay hadii madaxweynaha si uu xilka u baneeyo taas waxa ku jiri karta in madaxweynaha jamhuuriyadda uu hadda go'aansado in xilkiisa ka tago marka waxa khasab noqonaysa in gudoomiyaha baarlamaanka sida dastuurku qoran waxa xafiiskii la wareego muddo 30 cisho haddaan marka hadda madaxweyne xasan ku khasabno inuu gudoomiye jawaari shaqada u dhiibo gudoomiye jawaarina bilbay kaga dhamaanaysa haddana waxaan galeynaa shaqaqad kale oo dastuuri oo siyaasadeed marka ma kala cad dastuurka sidii wax la yeeli marka waxa haboon dadku inuu u baxo bisayl siyaasadeed cidii aaminsan inay dadka wax ka badiso ka aqli badan tahay ka xadaarad badan tahay ay aaminsan yihiin inay Soomaalida wax ku soo kordhin karaan inay ka shaqaan sidii doorasho xor ah oo xalaal loogu bixilaa madaxweynaha u bedeli lahayn ama dib ugu soo dooran lahayn aanay waqti badan ku luminin waxoogaa yarka noo yaala kala tuuristoodii la rabay in bal isu dhimriyo wax isu soo dhaweey Dr. Ibrahim marka hadda la fiiriyo
doorashada diyaar garowgeeda guddiyaa jira hadda doorasho guddi ka horeeyaa jiray madalaa jirta baarlamaanaa jiro maxaa la dhihi karaa kaalimahooda hawleed waxaad kaloo ka halmaanta waxaa kaloo jira odayaal dhaqan culumaa jirta bulsho rayd baa ayagana jira saddexdaasna way jiraan waa runtaayo horta guddigii hore oo gudoomiye Xalimeere ay waday waa la laalay si aan xalaal ahayn baa loo laalay waa nasiib darro inteeda la eg nimankan madasha sheeganayo qabqablayaasha buurbuurana baad moodaa inay ka dambeeyeen oo dawladda lagu xagilinay waxayna ahayn guddiga kaliya ee heer qaran ama federaal ee haystay sharciyad baarlamaani ah nasiib darrase waa la laalay ayaguna waa ku qanceen maxkamadna ma aadin baarlamaanna uma hiilinin bulshada rayidka beesha caalamkana way dayaceen inay xaqoodii la raadiyaan oo u gurmadaan si kastaba se waxaa la leeyahay waxaa la soo celin doonaa sanadka 2020 marka ay doorasho dhacdo marka qoladaas hadda wax kaalin oo la taaban karo muhiim ah malahan haddii hadda dacwan soo celinayna ay yiraahdaan xilligiiba lama joogo waa kala dhac badan baa dhacay guddiga hadda marka jira guddiyada hadda jiro is haysan kara kaalimahooda waxa weeyaan guddiga federaalka oo heer qaran oo Cumar Dhagey uu madaxda ka yahay iyo guddiga maamul goboleed heer maamul goboleed asagana doorashooyinka qaabilsan oo ay gobolada tooda ku egtahay kuwana ay qaranka ku egtahay waxa labadooda soo raaca oo aad moodid inay sharciyad u haystaan ay madasha siisay laakiin aan heer baarlamaan wax weyn oo sharciyadan ka haysanin waxa soo raaca xiriir aan wanaagsanin oo ka dhaxeeya nimankan ayagana madasha qaranka sheeganayo aan boos loogu haynin dastuurka sharciyad ahaan Soomaalinimada guud iyo baarlamaankii oo xilligiisa intuu kororsaday maadaama xilliga ka dhacay mashquul aad moodid inuu ku yahay xubin kasta oo xildhibaan kasta inuu asaga sidoo ku soo noqon lahaa oo ka shaqeeyo uu tuuladii aado odayadii raadiyo qabqablayaasha maamul goboleedyada jooga uu raadsado sidii uu dib ugu soo noqon lahaa ama senate ugu dalici lahaa ama uu baarlamaankii ugu soo noqon lahaa marka waxaad moodaa sharciyan marka la fiiriyo waxa iska leh go'aanka kama dambaysta ee heer siyaasadeed si dastuuri waxa uu leh golaha baarlamaanka oo la yiraahdo aqalka hadda noogu sareeyaba siyaasadaan marka la fiiriyo dalka madasha shaqadoodii waxay ku ekeen shirki u dambeeyay yiraahdeen wixii hadda ka dambeeyay guddiga doorashooyinka heer qaran baa shaqada iska sii wadan doon laftigeeda waa garab mar qeyr caadi ah iyo xataa qayaano qaran baa lagu tilmaami karaa inay taladii dalkoo dhan u dhiibaan guddi ay soo xusheen oo xafiisyadooda ka shaqeeya shaqaalahoodii oo walow ay Soomaali yihiin oo qalbigooda Ilaahay baa qalbiyada daalacday ay u badan tahay inay Soomaalinimada ilaaliyaan intay u eexan lahaayeen qof soo qoray haddana aan la garan karin meeshay aadi doonaan marka waxaad moodaa in isqabqabsi uu ka jiro walow aan wali la isqabqabsanaynin laakiin aanay kala cadayn sharciyada kooxaha Soomaalida isku hay dhinaca kale haweenka qoondadoodii 30% way u ordayaan culimada haweenkay diideen ay laftooda qoonda raba in la siiyo dhinac kale laga siiyo bulshada rayidkan waxaad moodaa in si allaba la halmaamo darashada laga bixiyo ayaguna isaga qanacsan yihiin maadaama aanay bulshaba ahayn ay beelo rayid yihiin oo reeksmaayoodka ay reeksmaayihiin reegarow baydhabo sidoo kale cadaado galguduud ahlu sunnahoodii qolalba maamulayna kuwa xataa muqdisho joogo heer qarana qof iyo 2 iyo 3 wax la mid ah ma ogi dun badan inaanay jirin oo aanay dhaamin kuwa maamul goboleedada dad kastoo la galaa aakhirka adarkiisa qofkii inuu ama qof gaara wato ama dawladdu si gaar ugu xaglinayo qadiyadii iyo fakarkii guud oo qarannimo aad mood dadka inuu si uga sii milmay nasiib darro marka hadda la fiiriyo waxa soo hadal qaaday culimada iyo doorka haweenka diintu kulay xad bay leedahay ay dumarka u ogoshahay dadkuna waa dad islaam ah marka qoondada haweenka la yiraahdo maxay tahay baahida gaarka ee culimada ay qabaan su-aasha waxay kaga sii habboonaan in la yiraahdo baahida gaarka ee haweenku qabaan maxay tahay haddii la yiraahdo dimuqraadiyad baa la isticmaalaya waxay noqonaysaa doorasho gabadhu haddii aanay cod ku heli karin intay dad hor istaagto xaqba uma bala in la soo doorto marka la fiiriyo baarlamaanka haddii laakiin la yiraahdo waxbaa la qoondaynayo waxaad moodaa inaan weli xilligeedii la gaarin oo bisaylkeedii siyaasadeed midnana aan la gaarin asalba si allabana waxay ku habboon tahay qofka daarti inaad kaalmaysid in si kale loo kaalmeeyo dhinac wacyiga laga kaalmeeyo dhinac farsamo dhinac maalgelin loo caqliyay oo uu dadka kale wax la raadsado mar daarti qof si gaar ah loo xanaaneynayo dhinac kale waxay ka noqonaysaa in tabartiisii la sii burburinayo aanu isku filnaan doonin mustaqbalka dhow iyo kan fogtoona qofka marka wax ku noqon kara in la yiraahdo dadka dhinac ka raac adeeg baa imanay inay wax soo dhacsadaan baa imanaysa ama haweenka iyo culimadaba sida bulshada rayidka uga tirsan inay dadkooda wax la qaybsadaan oo aan wax gaar ah loo raadinin waadna arki doontaa waxay noqon doontaa qof wax soo qora inta la waayo in haddana culays kale dawladda cusub iyo baarlamaanka cusub iyo beesha caalamka haddana mar kale culays kale inuu yimaado cadaadisyo badan haddana lagu xiro la saaro adduunka markaad fiirisid ma jiro
aan ka ahayn dalkan Rwanda la yiraahdo oo baarlamaanka ay haweenka ku badan yihiin ragga ku yar yihiin hay'adaha dawladda oo dhan ay haweenka ku badan marka laga yimaado Rwanda ma jiro adduunka meel 30% ay haweenka yihiin dalka ugu sareeya 25 umaleynaa boqolkiiba inuu Ruushka yahay umaleynaa Mareykanka iyo Ingiriiska aragto kale boqolkiiba 17 waay kama garan kara wax dal islaama oo sunniyiina oo shaaficiya in la yiraahdo boqolkiiba 30 haweenkeena ragana 70 han noqdeen waxaad moodaa in ajendayaal kale oo qarsoon ay jiraan oo markaan 30 keenana in shaqo kale hadana loo dhiibi doono wasakh kale hadana la isu dhiibi doono hal la sameeyo moodaa in dagaal kale oo shariicada islaamka lagu la jiro inuu yahay uu ka weyn yahay in haween wax lala raadiyo waxaana jira haween badan oo ku qanacsan in aan marna loo dhikraaricinin ajende aan ahayn ajendaha qaranka oo dalkii Soomaaliyeed dibadda ka imanay waxaan kula talin lahaa guud ahaan shacabweynaha Soomaalida iyo gaar ahaan haweenka Soomaaliyeed inay dadkooda dhinac ka raacaan wixii shariicada oo ogoshay dadka Soomaalida oo ogol wixii ay shariicada oo ogosho ay dadka Soomaalida u diidaan inay dadka dhinac ka raacaan ay u xarbiyaan oo aan koota gaar ku raadinin ma koota gaar hadii lagu siiyo daciifnimada calaamad u tahay inaad dadka ka liidatid وهذا نسكا أو إن لو إلى المرة بباهنت هذا نسكا حبوا قبسن كنا مركينا وحلقاتي دجالنتيد وحويديد وهذا دجالنتيد وحويد لا مركز دم وحي ربتي كبدن هذا الشيء آخر كانوا حين قلنا إن شرعنا إلى عليه حير كصومالي ذانا إلى عليه مرة بنا اللي بدو ده سيد ولا فيرنا تنتقرن كين ده الوعي هوين يدمر علمي متقارن الله فيرنا تذكر ده سمي إن مركز هذا أتفير السوء إن عبشة هوين كصوماليات inta badan ay ka hadlaan meel kasto ay leeyihiin boqolkii 30 kuwana loo sheegay laakiin lama siiyo ma aaminsanta in 30 kan afka horta ay tahay wax jiraba oo muuqda ahayn horta Soomaalidu boqolkiiba 30 ayada kama iman carta lafteeda boqolkiiba 12 kama iman waa lagu tijaabinayay carta waxa ka yimid oo balaaran oo caasha xaji cilmi ay waday oo aha in haweenka kaalintooda la aqoonsado kursiba lagu xisaabtamay sidaas 12 ka lagu keenay beesha lixaadna ay ku noqdeen nasiib darrada weyn waxa weeyaan in haweenkana loo raadinayo kaalin buuxda qabaa'il Soomaaliyeed oo marka la isku dardaro laga yaabo inay qabaa'ilada kale ka waaweyn yihiin la yiraahdo nus baatiin 0.5 baatiino maba dhamidin waxaan wada cadaalad darrada meeshay ka socotay inay ka weyn tahay in qondo dumar loo raadinayo kaliya ay tahay boqolkii 30 waa kootada haweenku hadda ay ku doodaan la yirina waa la siinaa inkastoo culimada ka soo horjeedo maxaa isdheelay dad islaamana waan nahay doorkaas ay dumarka horta siyaasadda ku lahaan karaan ka bursaliid ahaan horta shariicada way caddahay hadii ilaahay wadil ogolaadana waxaan ku talin lahaa inaad mar waraysi gaar ah samaysid oo shariicada waxa ay ka qabtaa aniga waxaan ku adkaysanayaa go'aankayga hore oo ahaa inaan koox Soomaaliyeed wala reerahan Soomaaliyeed 0.5 ka laga dhigay in 1 laga dhigo hadii 1 waayaana wax gaar ah aan la siinin oo ayagu ay raadsadaan oo ay dagaalamaan waxaan aaminsanahay ilaa inta qofka la leeyahay koota gaar ah lagu siinayo in axsaan loo faleyn oo loo arxan faleenin la sii duleysanayo la dhuminayo haweenka markii intay koota iska daayaan ha tartamen koob iyo 50 qof ha soo galeen qofka xildhibaanka ee soo baxaya inay noqdaan oo ay doorasho ku soo galaan ayagu ha isku dayeen dawladdan hadda wasaaradda dawladda cusbadii ilaahay wadada ogolaado wasaaradaha waa la kala leeyahay dumarku waa dad aad u naxariis badan deeqna badan wasaaradaha ay labadaas arrimood muhiim u tahay inay haweenku u dhiibaan aad bay u fiicnaan lahayd laakiin hoggaan marka la yiraahdo qabashadiis iyo koota in la raadiya dad dumarka kaliya maahan shacabweynaha Soomaaliya fiicnaan shariicadooda ilaaliyaan iskuna ururiyaan xeerka Soomaalidana aad loo xurmeeyo ilaa inta aanu shariicada garab mareyn oo waafaqsan yahay ku saleysan yahay mar walbana labadooda ayada maskaxda lagu hayo in danta qaranka mar walba la fiiriyo jamhuuriyadda aan laga bixin dawladda cusub aqalka sanadka ku jira iyo baarlamaan maxay tahay horta maxaa u dhaxay farqiga u dhaxay muxuu yahay sanadka iyo baarlamaanka maxay qabanayaan caadiyan marka la fiiriyo labada aqalka hoose waa aqal ay shaqadiisu tahay inuu matalo meelihii laga soo kala doortay goboladii iyo degmooyinkii iyo tuulooyinkii iyo beelihii inuu dawladda indhaha ku hayo oo wixii lagu heshiiyay dastuurkii meelmarintiisii sidoo kalena ay tahay inuu sharci sameeyo maxaa dastuurku waa xeer jira guud qawaaniin baa la rabaa qodob walba in la sii furfuro oo si baahsan looga shaqeeyo iyadoo shariicada la fiirinayo xeerka Soomaalida la fiirinayo oo danta guud oo qarankii jamhuuriyadda Soomaaliya la fiirinayo aqalkan sare marka waa aqal annaga siyaasadda Soomaalida ku cusub ilaa 60kii aanan sameyn culayska ugu weyn oo jiraan waxa weeyaan baarlamaanka hadda xilku ka sii dhamaanayo ma aanu sameynin faahfaahin ku filan oo aqalka sare wixii uu qaban lahaa laakiin caadiyan adduunka marka fiirisa aqalka sare waa aqal odayaal
mana aha odayaasha dhaqanka waa odayaal xadaariyiina oo maamulada markaas jira iyo gobolada jira ee jamhuuriyadda ka tirsan tahay u matala dhinaca siyaasadda iyo indhokuhaynta dowladda sidoo kale dalkoodiina matalaan laakiin sharci samaynta baarlamaanka iskale marka hadda fiirisi labada aqal ee adduunka kala jira ingiriiska iyo maraykanka kale aan tusaale usoo kala qaadanay aqalka sare waa aqal odayaal sharaf badan indhaha un ku haya dowladda rabana maamuladiina inaan la garab marin iyo goboladii sida ay wax u samaysanayeen dantii guud laakiin ay kala weynta xataa maamulada ay ka imanayeen hadda marka waxaad moodaa qaabka hirdanka soomaalida siyaasadeeda markaad fiiriso in aqalkan sare uu yahay aqal la rabo maadaama federaalkii uu naga dhex shaqayn waayay federadiisii hanaankii 4.5 laga yaabay inaan kasii baxno Soomaalida sharciyada isku adkaynaysa aqal la rabo in hadana mar kale lagu ragaadiyo oo uu yiraahdo may garow danteedii lama keenin may baydhaba dhiman may cadaadan lama sameyn kismaayo maxasan loo yeelay Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe markay isu yimaadaan laga in ayaguna yiraahdaan aqalka odayaasha noogu jiray u dagaalamaan ilaa qaabkan wax looma sameeyay qaabkan loo sameeyay hadii marka dhinaca wanaagsan aan ka fiirino oo ay noqoto insha Allah in xalaalnimo loo baxo suurtagalnimo intaas la eegno way jirtaayo Ilaahay idinka sanadkan hal aaminsan in sanad la xal ladii doonte waxay noqon doontaa in baarlamaanka cusub intaanu shaqo kalaba sameeynin isla baarlamaanka cusub waxay noqon doontaa intaanu shaqo kalaba sameeynin in isla marka uu gudoomiyihiisa doorto sanadkana ay ayagana gudoomiyahooda doortaan inta la fariisto in wuxuu sanadka qaban lahaa laga doodo oo la dejiyo waxay moodaa in shaqo badan ay baarlamaanka cusub la taalo waliba tuhun waxaa jira baarlamaanka cusub markuu yimaado inuu guddi hoosaad doorashooyinka qaabilsan sameyn doono doorashada madaxweynaha asaga sameeyo guddiga hadda jira uu cayrin doono waxa hataa ay u badan tahay in qaabka shuruudaha madaxtooyada iyo madaxweynaha iyo loo soo sameeyay in baarlamaanka xasan uu bedeli doono uu dhigi doono dastuurkan ilaalinayna wax dastuurka ku qoran waxaan ahayn ma sameyn doono maadaama dawladii hore iyo cutubkeedii oo dhan meeshaas ku dhamaanayo ay baarlamaan haduu yimaado in sharciyad cusub iyo hay'ad cusub oo dastuuri ah oo siyaasadeed oo dawlad oo mid ugu sareysa dalka ay markaas ayadu noqonayso insha Allah Dr. Bursarid markaad hadda fiiriso Soomaaliya federal way maamulada dhisan Hiiraan iyo Jowhar oo kale maamulada kamid yihiin sidee kula muuqata xaaladooda siyaasadeed horta dalku federal ma walaal raba inuu noqdo waana noqon laaya federal hadda waxa ma jiraan waa hal jamhuuriyad dadku waxa isaga khaldan nidaamka federaalka adduunka ka jiray kan annagana la ku khasbay in la saaro hadeer waa hal jamhuuriyad maamul goboleedda leh si dadka ay dib u heshiisiin ugu noqdo ay u soo noqdaan xataa markaad fiirisid qaabkii dib u heshiisiineed ama siyaasad ha noqdo ama dhaqan ha noqdo ama bulsho ha noqdo ma cadda odayaashii baa faraha lagu la jira maamul goboleedyada waxa gudahooda waxa ka jira kali talisnimo qayr caadi ah oo dulli ay ku hayaan dadka ay u taliyaan iyo gobolada ay sheeganayaan inay u taliyaan marka waxaad moodaa in bilaash looga cararayo Muqdisho waxa banaankeeda ka jira ay ka liitaan waxa Muqdisho ka jira waxa la yiri gaaldil gartiisana si in iska daba taagnaado qof ama hay'ad ama gobol kaligiisa ma fiicna hadaan soo noqdo su'aasha qaybteedii labaad oo ahayd Hiiraan iyo Shabeellaha dhexe waxaad moodaa in uu jiro waxoogaa isfahana oo marka si toos u sii fiirisid madaxweynaha iyo ugaaska cusub reer Hiiraan aad moodina si isu fiirsanayaan in sil rabay in igad loo soo dhexgeliyo oo ay igad ka shaqayn weyday in la majaxaabinayo aad moodina hadda la faramaro waqsaday hanaankii geedi socda dib u heshiisiinta labada gobol isugu sameyn lahaa oo Muqdisho la geeyay dhinaca beledweynaha khaladka ayaga dhinacooda wuxuu ka jiraa inay si u ragaadinayaan oo ay rabaan geedi socodkii aanu socon haddii aan Hiiraan laba gobol laga dhigaynin marka la fiiriyana hada goboladii Soomaaliya 18 gobol bay ka ahaayeen waxa in laba gobol laga dhigaan ay ku heli karaan waa in sharciyad una ay helaano baarlamaanka cusub iyo sanadka cusub ay isla sugaan wixii ay u garan doonaan dawladda cusub hadii Ilaahay wada ogolaado marka waxaad moodaa in shirkada Jowhar ka socdaan oo san sharciyad buuran haysanin diidada ugaaska uu diidan yahay geedi socodkana laftigiisa in culays intiisa leeg ay leedahay waxaanad moodaa hadii aan doorashooyinka dib loo dhigin mar kale in aan laga gaari doonin maamul xalaal oo loo dhanyo labadaas gobol ay la yimaadaan siba qas u jira jahawareer guud oo siyaasadda dhaqan ku lug lehna u jira ma kula tahay mararka qaar kood caqabadaha inay qayb ka yihiin dhaqanka iyo siyaasadda isku milmay waxaad moodaa caqabadaha xoogga marka la saaro waxaad moodaa in isku milankooda aanu ahayn xoogga la saari lahaa inaanay isu turin oo aanay isu garaabaynin laakiin in siyaasadda dhaqanka ay wada shaqeyn wax culays oo ay leedahay male tusaale haddaan ku siiyo dastuurka waxa noogu qoran aqalka sanadka ah waxay ahayd inay odayaasha noqdaan dhaqanka 135 oday ee reer kasta Soomaaliyeed walow aanay ku dhamayn badankood matala bal rabeen ayagu noqdaan aqalkii sanadka dawladda indhaha ku hayaan marka aad maadin maamul goboleedadu ay rabaan in odayaasha ku qortaan xubnihii baarlamaanka
laakiin aanay sanad u dirsadeen iyo wakiil inay u noqdaan maxaa fiicnaan lahayd marka in ama hal abuurnimo badan la sameeyo odayaasha iyo wakiilada gobolka inta la isku daray in sanad laga wada dhigo qolana ay siyaasad talo ka bixiso qolana ay dhaqan ka bixiso talo laakiin dalka waxa taladiisa si guud iyo sharciyadiisu haya ama sharci dejin ha noqoto ama matalaad ha noqoto siyaasadda ay matalaan meelihii laga soo doortay ama indho ku hayn dowladda ha noqoto in baarlamaanka looga dambeeyo inay habboonaan lahayd badmooda bursaliid markaad hadda fiiriso xaaladda siyaasadda ee dalka iyo siday wax u socdaan iyo isbedelka cusub ee la rajaynayo 4 sano soo socoto ma isleedahay doorka culimada diinka Soomaaliyeed ama bulshada rayidka ma muuqdaan si guud bulshada rayidka ma muuqdaan culimada diinkana ma muuqdaan oo khilaaf baa jira laba iskuul ah labada iskuul ka sokow dalada xataa culimada markaad fiirisid markii un arrin guud oo si diinta u taabanaysa un la soo qaado koota haween iyo arrimahan xuquuqul insaanka oo aan qaarkood la jaan qaadi karin shareecada iyo marka la soo qaaday wax lamid inay hadlaan magaxad moodaa inaanay wax badan siyaasadda kala soconin danaynaynin waxaa la ii sheegay in dalada culimada ay culays ku qabtay bandhigii buugaagta ugu dambeeyay Muqdisho lagu qabtay in buug af Soomaali lagu qoro dadka qaarkood inuu dhibayo ay rabi lahayn in luqado kale lagu qoro Carabiga oo kale marka guud ahaan bulshada rayidka moodaa in darashada laga tuuro aan wax kaalinaba loo ogoleyn culimadana waxay moodaa in si isaga yara seexdeen ama khilaaf ay ka dhaxay ha noqdo ama heerkooda wacyi meesha siyaasadda dalka uu marayo oo hooseeya ha noqdo ama guud ahaan gees u riixidoodaas guud ay dawladda iska riixayso inaanay culimo kaalin cad yeelanin mid ay noqoto waxay moodaa inaanay aad u muuqanin warunta markaad fiiriso xaaladda amniga doorashada lagu jiro inkastoo doorashadii cod hadda aan la sameynaynin saameyn ku yeelan karaa bay kula tahay qaabka u socdaan ha way fududahay in doorashooyinka heer gobol haddii la gaarsiiyey ay ka dhacaan Garowe iyo Cadaado iyo Beledweyne iyo Jowhar iyo Kismaayo iyo Baydhabo iyo Muqdisho wixii lamid Hargeysa baanay fududayn inay hadda doorashooyin Soomaaliya loo rabo ka dhacaan laakiin sidoo kale way fududahay in ayadana doorashooyinka heer qaran ee Muqdisho ka dhacaan oo labada aqal meel isugu keeno lagu ilaaliyo laakiin waxa amni ahaan aad u adag hadeer in cod iyo qof loo baxo oo doorashooyin guud ay dadka u dareeraan ilaa inta arinta amniga ay aad ka u daran tahay laakiin arintaas waxay keenaysaa inay xusuusiso heerka iyo culayska uu leeyahay amni darada baahsan ee hadda dalka ka jirta sida ciidamada qaranka aan la rabin in loo dhiso kuwa la dhis sida ajaanibta ugu shaqaysanayaan oo ay caymis ugu yihiin ayagana mushaarkooda iska fiirsanayaan iyo maybe dad qadiyad leh inay ku jiraan oo sugaya Janison ay Soomaaliya wax ugu qaban karaan mustaqbalka dhow iyo kan fog hadii Ilaahay uu dilo ogolaado sina waxaad moodaa kala shakigii dawladda xil looga shakiyeen maamuladan ayagana ay ciidamo iska samaysteen oo aan loo aamini karin inay heer qaran noqdaan laakiin ay heer qaran ku yihiin sida ay u fakaraan heerka gobolka markaas ay joogaan marka doorashooyinkan dadaban way dhici karaan amni darraba xoogaa inay shaqaaqada dhacaan waa laga yaabaa qaraxyo isku day dil agaasiman iyo wixii lamida dhowr qofood iyo wax lamida laakiin doorashooyin guud waa loo baxay hadii la yiraahdo in xaaladda amniga si hoose loo fiiriyo taladeedana ay hal meel ka timaado heer qaranna loola tacaamulay aan maamul goboleed iyo kaalmo ajaanib laga sugay midna ciidan lagu ma dhisan karo amnina lagu ma shaqeyn karo hadda markii la fiiriyo sida ay wax u socdaan ama doorashooyinka iyo diyaar garowga madaxda dadka u tartamaya xilkaas kursiga madaxtinimada dad badan oo musharaxiin ah Soomaaliya jiro dastuurkuna kulli musharaxnimada waxbuu ka qabaa magaalada Muqdisho la tagaa 2 toddobaad ba ninba maqaayadaas ay u shidan tahay oo ayaantaas magaalada kala xiran isleedahay horta waa la joogaa xilliga ay soo bandhigi lahaayeen iyadoo labadii aqalba wali aysan diyaar ahayn mase kula tahay ma la sal dhihi karaa maanta qof hebel ah muuqdo u cadcad marka tiri marba ninbay 2 toddobaad maqaaxida u shidan tahay waxaan islaama bad aadan adii xamdina meesha laba wiiga shidataan kaftanka soko xamdi wax cad ma jiraan wala wada madmadooyay sida hadda muuqata waxa cad ma jiraan waa midoo hadii ay ahaan lahayd doorasho qof iyo cod ah in dadka Soomaaliyeed qofku isu soo bandhigo oo murashaxnimadiisa uu cadaysta waxbay ahaan lahayd dadkii dooran lahaa si maqlayo arkayo oo nooca dawladnimo qofka ka muuqata la iman lahaa laakiin hadda dadkii wax dooran lahaa oo aan diyaar ba ahayn ma garan karo wax dadka ay murashaxiinta hadda juhdi badan u geliyeen waxaan qabanay waxaan ma qabanaysan wax yeelayo way fiican tahay in 2 toddobaad laga bariisay dad badan waxay cunaan xataa haysanin oo labadaasada ay u tahay feesto inteeda la eg Ilaahay naxariistiisa waa saacnimadeeda hadii marka la gaaro xilligii labada aqal
ay diyaarka ahaan lahaayeen oo labadoodii gudoomiye kala leh aqalka sare iyo kan hoose oo guddigii doorashooyinka sidiisa loo daayay ama la cayriyo guddi hoosaad ay baarlamaanku samaystaan sida aadka u muuqata hadeero maadaama aanay kuwan sharciyad fiican haysanin then dadka is sharaxa markaas kadib waxa la dhihi karaa haday cad yihiin oo hebel baa wata ama hebla ku haysata ama waxay u badan tahay in xataa dadka xulafaysi sameeyaan si ay group kale ula dagaalaan siyaasad ahaan gacan iyo xabad midna ma ahan iyo qayle baa la dhihi lahaa marka hadda wax cad male kulligood waa wada madmadooyin waxaad moodaa in ay tusaale cad iyo fariin u tahay sida aan uga dhacsannahay siyaasadaba guud ahaan haday ahaan lahayd daraasaynteeda sahaminteeda haday ahaan lahayd xataa ka howlgelisteeda iyo hoggaan qabasho midna tusaale ahaan madaxweynaha 2 sano ka hor buu murashax ahaa baarlamaanka markaas la joogayna ma wax dooranay murashaxiinta kala duwan ayaga laftigooda way soo wada boodeen waxay ku leeyihiin haddaan taaganayo halla ay doorto madaxweynaha la bedelo yaa la hadlaysaa horta baarlamaanka hadda jooga 65% ka mid ah inay soo noqdaan waa laga yaabaa laftigoodaan isku hubin taladii waxaa lagu xiray odayaal dhaqameed odayaashii taladoodii waxaa lagu xiray 51 qof oo jifadaas ka mid inay isu keenaan marka 51 qof oo aan dadka laga aqoonin oo xildhibaanka soo saari doona iyo xildhibaanka la soo saari doona aan dadka ka aqoonin qabqable buuran oo 3 gobol ama 2 gobol iyo bar ama 2 gobol haysta iyo wax la mid ama 3 gobol iyo bar iyo wax la mid haysta 8 senator oo soo diri doono oo laftigiisa culayska u yaala inuu qabaa'ilka beel ahaan beeshu ka soo jeeda kasoo beelaha kalena inuu simo gobolka uu ka soo jeedo haddana uu fiiriyo dad asaga daacad oo siyaasad ahaan matalayo difaaci doono uu ku kalsoonaan karo waxaad moodaa in cidla aad moodid in dadka murashaxiinta ay juhdigoodii gelinayaan iyo shilinkoodii inay gelinayaan ayna tahay un heerka jahawareer iyo ma garanaysaa ka dhacsanaanta dadka hadda maanta siyaasadda Soomaalida u taagan ay ku jiraan bay tusaale u tahay marka waxaan dhihi lahaa si kooban dadka hadda ay ka go'an tahay inay madaxweynayaal dalka u soo istaagaan inay ama wali aamusan yihiin ama ay maadaama labada orday dadka iska dhex galeen oo dadka waxay sameynayaan laakiin aanay wali si fiican isu soo sharxin ay soo sharxi doonaan ugu dambeyn 10 cisho 2 toddobaad ka hor intaanay doorashada madaxweynaha dhicin xilligaasna labadii aqal ay diyaar yihiin iyo gudoomiyaashoodii oo xataa uu bilowday dhaqdhaqaaqaya meesha ka doonan lahayn ay u kala cadda hadda marka la fiiriyo musharaxiin cusub jiraan oo madaxweyne rabo kuwa la yaqaanay oo awal xilal soo qabtaa jiro xasan sheekh oo madaxweyne ah waa musharax madaxweynihii ka horeeyay sheekh Shariif waa musharax horta wadankeena Soomaaliya marka la fiiriyo ninkii shalay wax soo joogay oo xilkii soo hayay in asagii aan ku laabano iyo waji cusub inaan aragno keen macna roon saddex arrimood baan aan arintaas ka fiirino jawaabteeda waa midoo waxay jirta daraasad ay samaysay akademiyaha Soomaalida ururo kale oo aan rabin inaan sheego oo aqoon-yahaniin oo cilmi baaris sameeyay ayagana way jiraan aan la wadaagnay maadaama marka aan fasax uga qabin magacooda ma sheegi karo waxaad moodaa in daraasado badan oo dalka gudihiisa iyo dibadiisaba laga sameeyay inay muuqdaan in madaxweynaha hadda xilka hay uusan soo noqon doonin in madaxweyne hore u soo maray rubac qarnigii la soo dhaafay dalkana uusan soo noqon doonin nin ra'iisul wasaare soo noqday inuusan soo noqon doonin nin xataa murashax soo noqday inuusan soo noqon doonin heerka daalka dadka Soomaalida marka fiirisid dadku inay wada farta iyo faruurta qaniinayaan oo ay wada dhaarsayn oo ay rabaan waxaan oo dhan inay xaabo iyo jaabo u qaataan oo iska xaqaan oo ay rabaan inay dad cusub oo siyaasadda dalka wax ka bedeli kara ay la yimaadeen ama qurbaha ka yimaadeen ama aqoon-yahaniin ha ahaadeen ama wadaniyiin ha ahaadeen ama dhalinyaro aan caadifadii midna qabinayn wadaniyad wata madaxana aysan marin ha ahaadeen bulshada rayidka marka aad moodaa in dadku ay rabaan inay qof cusub markaan la soo baxaan daraasadda ka sokow arinta labaad horeyna uga jawaab su'aashan waxa weeyaan markaad fiirisid taariikhda Soomaalida hore umay dhicin taariikhda Soomaalida intii yarayda aan doorashada ku jirnay 60kii ilaa 69kii oo dawladda kacanka ay noo dhalatay iyo xataa markaad fiirisid maamuladii ku meel gaarka ama federaal ha ahaadeen ama qaran ha ahaadeen ee dalka Soomaaliya laga soo bilaabo carto federaalkii koowaad kii labaad iyo federaalkan saddexaad markaad fiirisid ma jirin meel ay Soomaalida qof ay mar madaxweyne u dooratay mar kala doorato markay ugu dhaweyd waxay markii aadan cadde hal cod uu ra'iisul wasaarihiisii hore meesha uga qaaday aad bay wada marka fiirisid taariikhda siyaasadda Soomaalida oo iska habqan oo aan agaasin lahayn qorshe lahayn iyo lacag iyo plan B wax la yiraahdo qorshahan haduu ku shaqeyn way kana xataa aan lahayn ban maskaxda qofka Soomaaliga ee codka bixinaya aan lan marna laga gadi karin
qof 4 sano kuu fadhiyay ama 5 sano kuu fadhiyay inaad mar kale shaqo kale siisid waxay jecel yihiin dadka Soomaalida inay mar walba qof cusub tijaabiyaan ama ha ku tababarto ama wax soo siyaadiyo kuwii hore laakiin kuwii hore ha ka liitay inay iska laabaan kuwii hore iska laabaan su-aasha qaybta saddexaad ee su-aasha kaga jawaab waxa weeyaan xamdi adoo raaliya markaad fiirisid sida hadda ay wax u socdaan 4 sano la soo dhaafay wax badan ba dawladdu isku dayday inay qabato laakiin wax badanna waa halaysay wax badanna maysan qabanin balama badan oo ay gashay way ka baxday heerka dadka markaan ay daalka ka taageen markaa fiirisidna wala madaxweynaha hadda jooga wala mid soo maray midna inay siinayaan ayadana ilama aanu dadku way hadaaqayaan goobaha internetka oo bulshada ay ku wada hadlaan markaa fiirisid heerka daalka dadka markaa fiirisid waa qayro caadi weyn waxaad moodaa dadku inay markaan diyaar u yihiin isbedel dhaba oo wadaniyadeed oo Soomaali iyo baahideeda markaan iyo sida ay wax u aragto ka matalayo muraayad noqday dadka iska fiiriyaan waa garteen Bursaliid laakiin markaad hadda fiiriso in marka la yiraahdo hebel waa musharax su-aasha ugu horeysa qofka ku weydiinaya waxay tahay bulshadeen ka mid nahay muxuu lacag haystaa dawladdu ku xiran yahay dadku waxay aaminsan yihiin madaxweyne waxa aan barninku ka lacag badan yahay ma laga yaabo marka dadka inay fursad noocaas helayaan dadka hadda wax dooranaya waa dadka codlaawayaasha waxa hadda hadlaya aniga adiga wixii la mid ah dadka qofkan yaa wata iyo meequl lacag haystaa iyo dadka codlaawayaasha ay rabeen iska bariiseeyaan laakiin dadka marka la gaaro xilliga wax la bixin lahaa codayntii la gaaro baarlamaanka u yimaado ama sanadka u yimaado hebel dawladee wadatay meequl lacag haysta way ka baxaysaa waxa imaanaysa checklist inta loola soo bixin la yiraahdo gobolkee ka yimid aqoontiisa xagee gaarsiisan tahay kartidiisa tahay hufnaantiisa wadaniyadiisa in lagu soo bixin waxaad moodaa ilaahay amarkii waa gaar heerka daalka dadka Soomaalida marka la fiiriyo sanadkan 2016 ilaahay idamkii intaanu dhamaanin in loo bixi doono doorasho cajiibkeed leh oo dadka Soomaalida intay iska halmaamaan maamuladii ay ka socdeen iyo meelaha ay ku kala xirnaayeen in la soo baxaan qof Soomaali oo matali kara reerku raba ha noqdo gobolku raba ka yimaado wax kasta ha ka aaminsanaa siyaasadda Soomaalida iyo nidaamka hadda nahagay aan siyaasadda aaminsanahay waxaad moodaa in la gaaray xilliga ay dadku qadiyad u bixi lahaayeen aan la aadeen qof ay dal hebel wadato ama qof uu dal hebel wato iyo qof haysta lacag intaasoo milyan ama bilyan oo dollar dadka inuu ku iibsado sida asagoo dadka iska leh dadkan ilaahay baa iska leh marka aad moodaa in ilaahay idamkii subxaanahu loo bixi doono in markaan la soo xulo qof isku haleyntiisu ay tahay ilaahay subxaanahu wa ta'ala amuu ku wataayo meesha ku geeya quraan aaminsan inuu meesha ku tago dadkana toobad ugu yeeri doono haddii ilaahay wadil ogolaado labada aqal ee aqalka hoose iyo kan sanadka aqal baarlamaanka sanadka manahay horta dal qaadi kara hadda miisaankaas maya laakiin waxaad moodaa in lagu khasban yahay oo aan meel laga kala aadi doonin suuqa waxa ku jirta shaqada ugu horeysa baarlamaanka uu qaban doono inay tahay inuu laalo sanadka mar kale ama markii doorashooyinka madaxweynaha uu sameeyo ilaa 6 bilood ugu horeysa xafiiska uu fadhiyo sanadka shaqadiisa inuu laalo oo uu kala diro maadaama uu yahay hay'adii dastuuriga ugu sareysay dalka lamana hubo guuxa wuxuu ka imaanayaa 65% baarlamaanka hadda noo jiro oo laga yaabo inay dib u soo noqdaan inay talaali doonaan 35% kale ee ku soo biiri doonto cusub waxaan moodaa dadka inay ku daaleen nidaamkan federaalka oo aan xataa federaal runa ahayn qabqablayaasha buuran oo aan si niyad samay oo wadaniyada dawladii ula shaqeyneen dawladii oo ka dhacday mandatekii shaqadii loo idmado ay qabanaysay marka in la daalaad moodaa dadka markaan uu noocun bisay la wada gelayo oo la rabo in xalaalnimo markaan loo baxo waxaan ku jirnaa hadda diyaar garowga doorashada 4 sano soo socota madaxweynaha loo baahan yahay ninka ilaahay ka dhigaba hoggaan noocee ah ayaad leedahay wadankan waan ficil maanta loo baahan yahay astaamahaas hoggaanka wanaagsan ama dawlad wanaag laga rabaa horta way xamdi way aad u mahadsantahay way adag tahay in aan helno dawlad anaga aan sameysano dhoodhoobanay ilaahay baa wax abuurta subxaana oo soo rabo wax uu abuurta una hela anaga waxa ma abuuran karno bani aadana waan nahay qalbigu wuxuu iska jeclaan lahaa way jiraan adiga hadda su'aasha keenay ah dawlad noocee nagu samaan lahayd markaad fiirisid dawladihii ku meel gaarka ah ee na soo maray xataa tii Cali Mahdi colaadda Soomaalida faraha kula jirtay dhiiga laftigeeda dad fiicana ku jiray oo laga soo miran karo tii Cabdi Qaasim Carta dad fiicana ku jiray ku meel gaarka federaalka koowaad oo Cabdullaahi Yuusuf dad fiicana ku jiray ku meel gaarka federaalka oo labaad ee Sheekh Shariif dad fiicana ku jiray ku meel gaarkan saddexaad ee Xasan Sheekhna dad fiicana ku jiray aniga waxaan aaminsanahay hadii dadkaas fiican la isla raadiyo gobol qaran la dhigo quraan la aqriyo dadka Soomaalida iyo guud ahaan shacweynaha Soomaaliyeed jamhuuriyadda oo dhan toobad loo celiyo
ilaahay la baryo in nidaam xalaal loo bixi karaan aaminsan waxaan ugu fiicnaan lahayd dawlad aan ka gorgortamin waxyaabaha qiyamka oo aan laga gorgortami karin ee Soomaalida oo ay koow ka tahay shariicada laba ay ka tahay xeerka Soomaalida saddex ay ka tahay qoyska Soomaaliyeed wixii ku haboonaan lahaa afar in ciidan qaran la dhiso wax walba dib u heshiisiin ama siyaasad ama dhaqan ama bulsho la geliyo ugu dambeynna wax walba laga fiiriyo arrimahaas hore aan soo sheegnay oo aan laga gorgortamin hadii Ilaahay uu diro ogolaado haddii aan raacsado in doorashada hadda November 3keeda ayaa lagu wadaa madaxweynaha dhowr mar ay dib u dhacday ma laga yaabaa in haddana dib u dhac kale uu yimaado lama beensan karo hadda waxaad moodaa in dadku uu ku adag yahay in midaan ugu dambeyn hadda ay noqon doonto labo fakar oo kale way jiraan waa mid oo beesha caalamka waxay iska rabi lahayd in Christmaska ka hor la soo gabagabeeyo maadaama 25 December fasaxii Christmaska uu yahay dhowr cishan ay rabaan inay sii safraan meelaha kala yimaadeen aadan in ugu dambeyn 20 iyo 2 wixii ka horeeyay in doorashada la soo afjarinay jeclaan marka haday mar kale isaga darsadaan waxaad moodaa in hadana laga aamuso inta la yara daldaleecay mar dambe bedelan inta la yiraahdana in la isaga aamusi doono laakiin xataa marka si saani ah oo xalaal u fakartid oo mucaarad aad mucaaradsan tahay dawladda ama muxaafid aad u tahay dawladda midna aan la fiirinin beesha caalamka colaadeeda iyo dariska aanu kula tagin oo si saani loo fakaro waxaad moodaa in baarlamaanka cusub marka la keenay laftigiis uu doorashada madaxweynaha ku dari doono wuxuu u baahan yahay inuu xeer hoosaadkiisa dejiyo wixii qodob oo ayaga wax u dhimaya iska nadiifiyaan dastuurka qaabkii u wajihi lahayn gudigan doorashooyinka inay cayriyaan maadaama uusan sharciyad haysanin gudi hoosaad doorashooyinka madaxtooyada sameeya ay degsadaan cid qabsan kartana ma maxay ayaga dawladii Soomaaliyeed cid kasta marka baarlamaankaas la sameeyo wuxuu noqonayaa madaxweyne ku meel gaar u noqonay madaxweyne hadda aan ku doodayno waa ku meel gaar hadda ma ahna madaxweyne jamhuuriyad laakiin marka labada aqal la dhisay gudoomiyaashooda doortaan laga bilaabo ku meel gaar u noqonaya murashaxna uu noqonaya wali ilaaladii uu haysanaya laakiin wuxuu noqonayaa murashax ku meel gaarna uu noqonayaa dawlad waxa Ingiriis waxa lagu yiraahdaa si haye caretaker inuu noqday bay u badanta sharciyan baarlamaanka cusub marka waxaad moodaa inuu laftigiisa toddobaad ama laba toddobaad hadduusan ka badan inuu dib u dhigo doorashooyinka si uu waqti u siiyo in dastuurkii dib loo fiiriyo la fiiriyo shuruudihii madaxweynaha lagu soo dooran lahaa dastuuriyan wax meesha ku qoran arrimahan lacagaha araajida ay nadiifiyaan amniga murashaxiinta ay ka hadlaan labada aqal say ugu heli lahaayeen fursado ay kula kulmaan warbaahinta qaranka midda khaaska loo leeyahay waa lacag ayada way iibsan karaan dadku waqtigooda waxaas oo markay nadiifiyaan waxay u baahanayaan waqti marka ay ku sameeyaan waxaad moodaa marka in dib u dhacaan suurtagal ay tahay in November mar kale laga baxo hatta hadda si saani u fakartid soddon waxaad moodaa inaanay weli run ahayno laba toddobaad ama saddex toddobaad ama bil inay hadana ku darsami doonto waliba laba toddobaad roughly aad buu mahadsan yahay Dr. Ibrahim Faarax Bursaliid ayuu ahaa oo martii inoogu ha barnaamijka wareysiga toddobaadka oo maanta kaga hadlaynay xaaladda guud ee siyaasadda dalka Soomaaliya iyo diyaar garowga doorashada cusub ee fooda inagu soo haysa waxaan kaaga mahadcelinayaa waqtigaaga qaaligeedna siisa intaan dib hawada ugu kulmi doono sida ay nabadgelyo waad mahadsan tahay mar kale